isagoo qofkii waxbarasho haysta caafimaad haysta haddii dulmi yimaado waa lagu kala yaacay labada kale lama jirayaan Soomaaliya burburka waxa koow ka ahaa inagu waxaan dad isku diina isku dhaqana isku saqaafada siraac fikriye meenu gelin oo dad inaga fikira meesha ma iman ama gaal ama muslim isma dileen sunni shiici isma dileen waa dad dulmi tirsanayay dulmigii ma maanta halka la maraya dawladdeena dulmi bay ku baabaaday laga tirsanayay Soomaali maanta markaad aragto meel walba qof uu ka cabanaya reer buu ka cabanaya maamul buu ka cabanaya nidaamka garsoorka ee wadanku waa inuu ka madax banaanaada wala fulinta iyo sharci dejinta ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ra'iisul wasaaraha kamid ku Ingiriiska mar wuxuu yiri markaan ogaaday inuu Ingiriiska nidaamkiisa garsoorku fiican yahay waxaan ogaaday in Ingiriisku kun jeer fiican yihiin waa halka kaliya laga eego meesha hadaan dulmi jirin hadii kala haduu dulmi jiro waxa weeye waa qofku ka xoog weeyahay ba meesha lagu noolaanaya ilaahayna quraankiisa wuxuu ku yiri watamad kalimatu rabbika sidqan wa adla in badan buu ilaahay inaga dardaarmay inaynu dadka loo cadaalad sameeyo haddaba si uu nidaamka garsoorku u wanaagsanaado waxaan u baahanahay in aan dadka la kala jeclaysan garsooraha aad jeceshahay aanad keesana ku fiilaad keesato labada qof ee dad garsooro tahay aad kala xukumayso kaas ku reerka diin ama kaas saaxiibka diin aanad u helin adu almuhiim inaad dadka la jeclaan inaad dadka cadaalad loogu garnoqo marka cadaalad loogu garnoqo qof walba uu raali buu ka ahaanaya inkastoo maqoolad shahiira waxay tiraahdaa garsoorkuna xuquuqda ayuu dadka u celiyaa oo qofkii xuqiisii baad u celinaysaa laakiin niyadii halka musaalaxada iyo heshiisiinta walaaltinimadana ay qulubta isu celiyaan dadka ilaahay waa ka hadlay in Allah yaamurukum an tu'addu al-amanata ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl Soomaaliya maanta hadeen helno garsoore caadila wadan amaana dadkii dambiga geystay oo inta la soo qabto la xukumayo oo dambigoodii laga jazaaysiinayo say cibro u noqdaan kuwa kale qofkii dulmiga tabanayna xaqiisi loo celiyo ee wax inaga maqan ma jiri karaan filayaa marka waxaan iskuuladii baa la dhisayaa la isku qabsanay dhulkii wadankii waa horumaraya waxa jirta maanta Soomaaliya waxay la muuqataa si uu nidaamka garsoorku ee Soomaaliya sidii loo rabay uu noqdo horta waa inuu madax banaan yeeshaa haddii aanu madax banaaneenba waxa weeye waxa ma qaban karo dastuurkaana sheegay in garsoorku ka madax banaan yahay baarlamaanka iyo golaha fulinta ee dawladda inuu ninka garsooraha ka noqonayaana aan cidna ka sarreyninka oo aan kiiska hor yaala cid kale oo isaga ka sarreyso oo kala soo hadlayso amar ku siinayso oo dhanaysa sida yeel aanu jirin waxa kaliya ka sarreynaya ee uu ku xisaabtamay ninka garsoor waxa weeye ahkaamta iyo qaanuunka wadanka u yaala cid kale oo u dhaafaya ma jirto si guud haddii labadaas dhacaan garsoorkii si guudna waa madax banaan yahay wixii garsoorka ka shaqeynaya oo ah garsoorayaashiina waa madax banaan yihiin cidna ka baqi maayin ilaahay mooyee marka waxa weeye waa hana qaadi kara waa isla garanay hadduu garsoorku hana qaadana in wadanka intiisa kale ay saameyn ku yeelanayso waxbarashadii caafimaadkii sumcaddii wadanka waad maqashay Soomaaliya waxa la musuqmaasuqi kaalinta ugu dambaysa gashay ma garanaysa waxa soo waxa weeye waa cadaalad darrada iyo dulmiga inta dulmi dhulka ka jirana raxmadda ilaahay waa ka fogtay mujtamaca waxa muhiim ah in la dhiso guddiga garsoorka aad ugu fogaan maayo waxa moodaa in arrimo badan oo siyaasi ah oo ila dawladdan tii ka horeysay waa soo jiitamaysay lama qaban kari waayin ee waxa weeye siyaasad baa gashay marka anigu guddiga garsoorka sidii loo dhisi waayay sababaheeda halkan waxba ka oran maayo ilaa yiraahdo waa la wada garanaya waa laga aqoon badan yahay
waa in gudidii garsoorka la dhisaa gudida garsoorka yada ayaa siyaasadaha garsoorka ee wadanka u yaala dejinaysa madaxweyne iyo ra'iisul wasaare laga sugayo iyo cid la oran ma jirto waa marka la dhiso gudi garsoor oo madax banaan oo awoodeeda leh yada ayaa waxay sameynaysaa wixii gudida la hor keeno yada ayaa fiirinaysa cid kalena uma daba fadhiisanayso garsoorayaasha wixii dambi gala inay casisho yada ayaa shaqada iska leh marka waxa weey gudida garsoorka waa laga maarmaan waa in u baahanahay welina waan sugeynaa maxkamadda dastuuriga koleba garsoorayaasha aniga aqoon badan laakiin maxkamadda dastuuriga waxaan aqaanaa anigu inay eegto nadri dacwadaha u dhaxeeya hay'adaha dawladda iyo qawaaniinta iyo shuruucda joogta dastuurnimadooda ina waxaas dastuurka waafaqsan yihiin kale waa laga maarmaan si guud waxaan aaminsanahay nabad daridu ama nabad xumaantu may keenin garsoor xumaanta ayaa nabad la'aanta keentay maalinta cadaalad timaado nin aanu ka cabaneen cidna qori isu qaadamayso qoriga waa la iska dhigay garsoorka lagu kala soonaanaya laakiin sababta keentay qoriga in la qaato waa garsoor la'aan marka waxa weeye inta meel kale laga dayay nabadda waa in garsoorka laga raadiyaa waa in dadka Soomaaliyeed qof loo heshiisiyaa wixii u kala maqan la isu celiyaa waa in gobol waa in magaalo waa in xamlad la bilaabaa waa in sulx la sameeyaa waa doorkii odayaasha salaadiinta dhaqanka waa aysan hore u soo sheegnay garsoorku wuxuu celiyaa waxa weeye dhulbiga haysta dhulkii baa lagu celinay laakiin labadii qof qulubtooda la isma celin in Soomaalida qulubtooda la isu celiyo oo odayaashu qayb galaan oo dhalinyarada oo dumarka oo dadka maaragtay aan dhibaatooyin geysan oo magac fiican umada ku leh ay hawsha ka qayb qaataan taasna maslaxada guud ayay في النهاية كسر ضمبينسا وحي من دونا مركز مجتمع إسكان رالية مجتمع هدور رالي إسكية هاي وهرم ريان أنت سين كسر قبل لها أحام في ليا وأنا تكرر الجيل يا وقت ما نبي ويكسر راجي